رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا عليه، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. ولوحaan ku dhex jirnaa siiradii nabiga sala allahu calayhi wasalam iyo kitaabkii rawdat alanwaar. qaas ahaan waxaan bartamaha uga jirnay waraaqooyinkii nebiga uu kaga faa'iidaysanayey inuu dacwada ummadda ku gaarsiiyo, khaasatan madaxda iyo dadkii amiirada ahaa. waxaa noogu soo dembeeyey boqorkii Hiraqle oo warqad loo qaaday, rasuulkuna uu u diray. asagoo warqaddaa u sii mariyey waa boqorkii mtaqaanaa ruume, una sii mariyey una dhiibay. intaa kadibna abuu sufyaan iyo koox dhowr su'aalood markaa u weydiiyey. taasaa markaa noogu soo dambaysay. waxaa khaasatan noogu soo dambaysay markii abuu sufyaan wixii su'aala la weydiiyey uu ka jawaabay inuu tacliiq saaray boqorkii. intaa kadibna uu yidhi abuu sufyaan, labadaydan lugood meeshay ku taagan yihiin ayuu qabsan doonaan maxamed. waan ogaa inuu nebi soo bixi doono, laakiin inuu carab uu idinka mid yahay anigu ma u malaynayn. se ogaan lahaa inaan gaarayo waxaan isku kalifi lahaa saan ula kulmi lahaa. haddaan agtiisa joogi lahaa lugahan u dhaqi lahaa. saasaa markaa noogu soo dambaysay. intaa kadib dacaa wuxuu u yeertay ninkii hiraqle ahaa alkitaaba, kitaabkii markaa u wacday. warqaddii nebiga uu u soo diray keena buu markaa yidhi. faqara'ahu wuu akhriyey ama waa loo akhriyey. fairtafacat ilaswaatu, codadkii ayaa kor noqday. marka codadkii ura waxaa batay allagat, buuqii. meeshii oo dhan hudub iyo buuq ay markaa badashay. fa ukhrija waa la soo saaray abaa sufyaan iyo waman macahu, intii micigiisa ahaydna bannaankaa loo soo bixiyey. falammaa markii kharaja uu soo baxay abuu sufyaan qaala liasxaabihi, asxaabtiisa ayaa wuxuu ku yidhi, laqad amira waxaa weynaaday amru ibnu abi kabsha, ina abii kabsh arrintiisii way weynaatay. rasuulku ula jeedaa mar allaale markay qof rabaan inay liidaan magac aan lagu aqoon ama gariib ah, laqad amira amru ibnu abi kabsha, nebiguu la jeedaa. innahu asaga la yakhaafidu waxaaba ka cabsanaya meliku bani lasfar, reer bani asfar boqorkoodii. walam yahal ma uusan ka zuulin abuu sufyaan muuqinan inuu yaqiinsan yahay bacdahu markaa kadib biduhuuri amri rasuulillaahi, rasuulka amarkiisa inuu guulaysanayo sala allahu calayhi wasalam, xataa wafaqahu allahu, ilaa ilaahay abaa sufyaan u waafajiyey liislaami, islaamnimada. wa ajaaza wuxuu soo siiyey hiraqle bishri ibnu khaliifata alkalbiy, waa ninkii saxaabi ahaa ee warqaddii u qaaday nebiga soo siiyey. wa kiswatun dharna wuu soo siiyey. uma kabacdi rajaca wuxuu ku soo laabtay waa bixiye ilaa ximsa. uma kadibba rajaca wuu soo laabtay hiraqle ilaa ximsa ayuu markaa ku soo noqday. faadina wuxuu idmay uu fasax ku siiyey iyo amar licudamaa'i ruum madaxdoodii fii daskaratin, meel daskara ah, xafiis ah ama mawlaca oo lahu asaga uu lahaa.
wa amara wuxuu amray markay soo galaanna biabwaabiha albaabaheeda in la xirxiro fa ugliqat waa la xiray. albaabihii ayaa loo soo xiray. uma intaa kadib culammadii iyo dadkii boqorrada madaxda u ahaa Hiraqle asagoo albaabkii u wada xiray oo meeshu ay wada fadhiyaan buu u qudbeeyey. uma qaala wuxuu yidhi yaa macshara aruum war reer ruumey hal lakum ma rabtaan fi lfalaaxi liibaan iyo warushdi hamiin war inaad hamiin iyo liibaan heshaan ma rabtiin wa an yahbuta inuu sugnaado mulkukum mulkihiina boqortinimadiini inay jirto ma rabtiin fatutaabicuu wuxuu yidhi haddaad intaa rabtaan igu raaca fatutaabicuu ila mubaayactama oo igu raaca haada alnebiy weligaa asaga ah nebi moxamed aan rumayno. faxaasuu hal mar bay kala ordeen waa bideen xiisata xumri lwaxshi sida dameer farowga uu u ordo oo kale iyo hal mar markaa u ordeen. ila alabwaabi albaabahoodii bay aadeen fawajaduuhaa waxay heleen muqlaqatan in la xiray. albaabihii oo la xiray ayay markaa la kulmeen ay markaa arkeen. falammaa markii ra'aa uu arkay qaysara nafratahum orodkoodii mar allaala markuu arkay inay didayaan oo ay kala ordeen qaala wuxuu dhahay rudduuhum calaya ii soo celiya. faqaala lahum wuxuu ku yidhi innii anigu qultu waxaan idhi maqaalatii oraahdayda hadda aan idinla hadlay oo ah nebi moxamed aan rumayno run igamaahayn buu yidhi. akhtabiru biha waxaan idinku imtixaamaye taa shiddatukum ad adaygiina calaa diinikum diinkee nasaara saad ugu ad adag tihiin. faqad ra'aytu waana arkay moxamedna ma raacayno fasajaduu lahu way u sujuudeen. allahu akbar way u sujuudeen waraduu canhu wayna ka raali noqdeen. wayatabayana waxaa ka caddaanaya meesha min haada arrinta anna qaysar carafa inuu gartay annabiya nebiga sala allahu calayh wasalam wa sidqa nubuwatihi iyo nebinimadiisa run inay tahay tamaama almacrifa garasho dhammaystiran buu gartay. walakin halaba calayhi waxaa ka adkaa boqortinimadiisa ayaa ka adkaa falam yuslim ma uusan islaamin Hiraqle wa baa'a wuxuu la laabtay biifmihi dembigiisa iyo wa ifma raaciyatihi inta uu u taliyo dembigooda kamaa qaala annabiyu sida uu nebigu yidhiba sal alla calayh wasalam. wiilkii saxaabigae warqadda nebiga ugu dhiibay ee maalkii xoolaha uu soo siiyey fiiri taariikhdiisa asagana. amaa dixya bin khaliifata alkalbiya ninkii ahaa fa innahu asagu lamaa kaagu magacaabo waa meel urdun u dhowe fii tariiqihi jidkiisana uu ku soo socdo raajican u soo laabtay ila almadiinati qataca calayhi ariiqa jidka waxaa ka gooyey rijaalu rag shubata ah oo mooryaan ah ayaa jidka u gashay oo min bani judaamin reer bani judaan u dhalatay. waintahabuuhu way boobeen wixii xoolo uu watay ayay ka qaateen xataa lam yatrukuu ilaa aysan uga tegin macahu micigiisa shay-an waxba wax ay u dhaafeen ma laha. wax allaala wixii hanti ahaa ee xoolo uu watay jidgooyo inta loo galay yaa laga qaatay. falammaa markii balaqa uu soo gaaray waa ninkii dixye ahee almadiinata magaalada madiina oo wa akhbara uu u sheegay rasuula allaahi rasuulkii alla wixii dhacay bacata ilayhim rasuulku wuxuu u diray xaggooda zayd ibnu xaarifa. ninkii zayd ibnu xaarifa ahaa buu u diray oo fii 500 oo muqaatilin dagaalyahana uu wato. zayd ibnu xaarifa oo 500 oo rag oo dagaalyahan ah wataa ayuu markaa u diray. fa agaaruu way weerareen wa qataluu way laayeen wahanamuu waxay ka soo haniimaysteen oy ka soo furteen 1000 baciirin kurati bay ka soo haniimaysteen wa 5000 oo shaati riyoodna markaa way ka soo haniimaysteen waa 5,000 oo ari ah. wasabbu waxay soo qafaasheen wasabbu
waxay soo qafaasheen oo ay ka soo qaateen raggii 100 oo min annisaa'i iyo wasibyaani ilmo iyo carruur isku jira ah. wa asraca waxaa soo degdegay zayd ibnu rufaaca aljudaani ee reer judaani ahaa. waa nimankii hadda jidka u galay wiilkii saxaabiga ee booday. nin ka mid ah oo islaamayo marka horena ka celiyey waa axadu ru'asaa'ihim madaxdooda mid ka mida ila almadiina orod ku yimid. wa kaana aslama huwa wa rijaalun min qowmihi asaga iyo rag qoomkiisa ka mida islaamay. wa nasaruu waxay u heeliyeen bixiya xiina qataca ariiqa markii waddada laga gooyey calayhi korkiisa. faradda calayhi rasuuluullah rasuulka waa u soo celiyey alghanaa'ima haniimooyinkii iyo wasabyi qafaalkiida. ilaahay nebigiisa xikmadu isticmaali jiray ka mid tahay. nimankaa saxaabigaa booday markii inta weerarka lagu qaaday laga guulaystay, intaasoo xoolo laga soo helay, hal nin oo dadkooda ka midoo islaamay oo nebiga u yimid ayuu u cafiyey, xoolihii o dhanna uu siiyey. waxyaabaha loo baahanya tasaamuxa, cafinta, dacwada habka loo gutay ka mid tahay. ama haddii ummadda lagu adkeeyo oo la caayo oo la habaaro oo dhibaato la gaarsiiyo, usluub dacwo ma aha. kitaabkii shanaad baanu gelaynaa. wa kataba wuu qoray rasuulullaahi rasuulkii ilaahay sala allahu calayhi wasalam kitaaban warqad ayuu u qoray ila alxaarif ibni abi shamir alghazaani ninka lagu magacaabo waa amiiri dimashaq amiirkeedii boqorkeedii ayuu markaa ahaa. min qibali qaysar dhanka kaysar buuna madax uga ahaa. wahaa ka qaado oo dhegayso masal kitaabi wixii kitaabka ku qornaa. kitaabka iyo warqaddaa nebiga ninka uu u diray wixii ku qornaa waa kanaayo dhegayso. maxaa ku qornaa? bismi illaahi araxmaani araxiim. nebiga mar kastuu warqad diraya bisinkuu ku bilaabi jiray. bismi illaahi araxmaani araxiim. ilaahay isimkiisaan ku bilaabayaa iyo magaciisa allihii arraxmaani naxariista guud ahaaneed lahaa, alraxiimi naxariista qaaskaa oo sugnaatay min muxammadin muxamed bay ka timid warqadan. muxamedkii rasuulillaahi rasuulkii alla ahaa. ila alxaarif bay ku socotaa ibni abi shamir ninka lagu magacaabo. salaamun nabadgelyo calaa man ittabaca alhudaa qofka hanuunka raacay dushiisa ha ahaato. qofka hanuunka raacay dushiisay nabadgelyo ahaanaysaa oo wa aamana rumeeyey billaahi ilaahi oo wasadaqa aaminay. wa innii anigu xaarifow adacuuka waxaan kuugu yeerayaa an tu'mina billaahi inaad ilaahay rumayso waxdahu keligii xaal uu yahay, laa shariika lahu wax shirki ahna uusan markaa u sugnaanin ilaah subxaanah wa tacaala. laa shariika lahu yabqaa laka mulkuka. ilaahay subxaanah wa tacaala yabqaa wuxuu baaqi yeelayaa uu ilaahay kuu reebayaa laka adiga mulkuka mulkigaaga. haddaad ilaahay aaminto ood rabbi keligii rumayso mulkigaaga baaqi buu kaaga dhigayaa. wabacata wuxuu la soo diray nebiga alkitaaba warqadan uu u soo qoray xaarif ibni abi shamir maca shujaac bin wahab alasdiyi ninka lagu magacaabo. nin lagu magacaabo shujaac bin wahab alasdiy ninkaasuu warqadda u soo dhiibay. min asad bin qusayma ayuu ka mid ahaa, qabiilkaa reer asad bin qusayma. falamaa markii qara'a uu akhriyey alkitaaba kitaabkiina ninkii xaarif bin abi shamir ahaa warqadda nebiga markay soo gaartay uu akhriyey, ramaa bihi wuu tuuray. warqaddii rasuulkuu dhulka ku tuuray. wa qaala wuxuu yidhi man yanzicu yaa iga siibi karaa mulkigayga minii xaggayga, yaa waay axadka ku dhici karaa inuu boqortinimadayda qaato. wastacadda wuxuu u diyaargaroobay liyursala inuu nebiga u soo diro jeyshan ciidan yaqzuu ku soo duula almuslimiina muslimiinta. warqaddii nebiga markuu akhriyay wuu tuuray. intaa kuma ekaanine diyaargarow ayuu galay inuu ciidan muslimiinta ku duulo. wa qaala wuxuu ku yidhi lishujaac bin wahab oo warqaddii keenay, akhbir u sheeg bax saaxibaka saaxiibkaaga. nebigu ula jeedaa kii ku soo diray
ee warqadda kuu soo dhiibay u tag oo waxaad u sheegtaa bimaa taraa waxaad aragtay. inaan warqaddiisii tuuray u sheeg, inaan ciidan diyaarsanayna u sheeg, waxyaabo fara badan oo noocaasuu markaa yidhi. akhbir u sheeg saaxibaka saaxiibkaaga bimaa tara waxaan aad arkayso. wasta'dana fasax buu ka qaatay ninkii ahaa ee xaarif bin abi shamir oo ninkaa qaysara dhankiisa madax uga ahaa. weerarka iskama soo qaadine marka hore wuxuu fasax ka qaatay qaysar fii xarbi rasuuliillaahi inuu nebiga la xarbiyo, inuu dagaal ku qaado rasuulka sala allahu calayhi wasalam. taa ayuu markaa fasax uga qaatay. fahanaahu wuu ka reebay. inkastoo gaalo la wada yahay haddana waa laisdhaamaayo caqliga laisdheer yahay. fiiri ninkan qaysar wuxuu sameeyey. fahanaahu wuu ka celiyey qaysar can casmihi go'aankiisa. dhaaf buu dhahay ha weeraran. faajaaza wuxuu siiyey markaa kadib alxaarifu ninkii xaarif ahaa ee warqadda nebiga tuuray, shujaac bin wahbin oo ahaa ninkii nebiga warqadda ugu soo dhiibay, wuxuu siiyey bilkiswati dhar waalnafaqati iyo nafaqo, wa raddahu bilxusnaa si fiican waa u celiyey. wax dhibaatana ma uusan gaarsiinine raashin iyo dhar buu isugu daray. warqaddii 6aad. wa kataba wuu qoray sala allahu calayhi wasalam rasuulka kitaaban warqad buu u qoray ilaa amiiri busra. busra amiirkooda waxaa ku qornaa warqaddii yadacuuhu asagoo ugu yeerahaya ila alislaami islaamnimada, islaamnimuu ugu wacaayo. wabacata alkitaaba kitaabkii wuxuu u dhiibay nebiga uu la diray maca alxaarif bin cumayr alasadiyi ninka lagu magacaabo xaarif bin cumayr alasadiy radia allaahu canhu. falamaa markii balaqa uu gaaray mu'ta meel lagu magacaabo oo min camali balqaa'i, balqa meel la yidhaahdo xaafadaheeda ama tuulooyinkeeda ka mid ah oo fii januubi urdun koonfurteeda ku taalla. markuu marayay saxaabigii nebiga warqadda u dhiibay, tacarada lahu waxaa u soo banbaxay shuraxbiil nin la yidhaahdo shuraxbiil bin camr alghazaani. fadaraba cunuqahu qoortuu ka gooyey. wiilkii saxaabiga ahaa ee warqadda nebiga waday ee loogu dhiibay busre amiirkeeda inuu u geeyo intuusan gaarinba ee uu maraayo mu'ta meel la dhaho oo magaalooyinka balqaa ku taaloo junuubta ama koonfurta urdun ah, nin shuraxbiil bin camr la dhaho alghazaani ayaa u soo baxay. fadaraba cunuqahu qoortuu ka gooyey saxaabigii, wuu dilay macnaha. wa kaana haada arrintaa waxay noqotay ashamrin camalkan ugu daran cudwaaniyin oo colaytan ah. camal nabiga iyo muslimiinta lagu colaadiyo tan ugu daran waaye. marka la fiiriyo ergada ku aadankooda sideedaba waxaa adduunka mamnuuc ka ah erge in la dilo. laba wadan markay dagaal uu ka socdo, haddii qoladan erge ay soo diraan qoladan kale ee dagaalku kula jiraan uu aado, waa mamnuuc in la dilo. sideedaba ergadu lama dilo. rasuulku ma dili jirin sala allahu calayhi wasalam. gaalada hadday erge soo diraan ay u yimaadaan arrin ay kala hadlaan si saliim ah ayaa loo ambabixin jiray. laakiin waa tan waxay noqotay camal cudwaani ahoo gardarsi ah, tan ugu xun oo ugu daran tujaaha rusuli rususha ku aadankooda. falam yuqtal lagama dilin lirasuulillaahi rasuulka allah sala allahu calayh wasalam rasuulun qof erge ah uu diraayey intaa aan soo tilmaannay. waxaan maraynaa warqaddii 6aad ee nebiga uu saxaabi u dhiibo. weli ma soo arkin nin laga dilay oo ergadiisa ah hayruhu milka hayrkiisa. waa xaarif ibni cumayr. waqad wajada wuu carooday sala allahu calayhi wasalam, wuu ka xanaaqay nebiga calaa daalika arrinta. wajdan xanaaq buu ka xanaaqay, xanaaqaasoo shadiidan adag. xanaaq daran buu rasuulku arrintaa ka xanaaqay, xataa ilaa afdaa ay gaarsiisay daalika arrintaa nimanka saxaabiga ee ku dilay mu'ta ilaa macrakati mu'ta, dagaalka mu'ta. wuunoo imaan doonaa. wasana'tii calaa dikriha, waan u tegi doonnaa calaa dikriha xuskeeda. qaswatu mu'ta si toos bay noogu imaan doontaa. waaba sababta kaliftay in mu'ta dagaal lagu qaado. wiilkaa saxaabigii qoorta ay ka gooyeen oo ay dileen, taasaa markaa sababtay oo markaa keentay. kitaabkii 7aad. wa kataba wuu qoray sala allahu calayhi wasalam rasuulka kitaaban warqad ayuu qoray ilaa hawda ninka lagu magacaabo
hawdah bin cali waa saaxibu alyamaama, yamaamo saaxiibkeedii. yamaamo meesha la yidhaahdo ayuu madax u ahaayo saaxiib u ahaa. meeshaasaa markaa lagu daro yamaamana waa meeshaa sacuudigee markaa lagu magacaabo riyaad. meeshaa ayaa waxaa ku yaala hadda markaad fiiriso suuq weyn oo yamaamo lagu magacaabo. meeshaasuu markaa joogayo ninkaas ayuu haddana nebigu warqad u qoray. wa kataba sala allahu calayhi wasalam, rasuulku kitaaban warqad ayuu haddana u qoray ilaa hawdah ninka lagu magacaabo hawdah bin cali oo saaxibu alyamaama, yamaama saaxiibkeedii markaa ahaayo meeshuu madax ka ahaa. huwa warqaduna saan bay u qorneed. bismi illaahi araxmaani araxiim, ilaahay magaciisaan ku bilaabayaa, allihii naxariistaa lahaa ayaan ku bilaabayaan ka timid warqadaanna maxamed rasuulillaahi, rasuulkii alla ahaa. ilaa hawdah bin cali bay markaa ku socotaa. salaamun nabadgeliyo caraacatiisay ahaatay ama ha ahaato qofka hamiinka raaca. ileen qofka assalaamu calaykum layskagama salaamo, waxaa assalaamu calaykum lagu salaamaa qofka hamiinka iyo diinka raaca. laakiin dadka kalee gaalada ah salaamun calaa man ittabaca alhudaa ayuu nebigu u qori jiray. waclam ogow, waxaad ogaataa hawdah diinkeyga sayadharu inuu ka guulayno doono ihaa alkhufu waalxaafiru, inuu milkigayga gaari doono meesha uu markaa gaaro. alkhufu caggeel, waalxaafiru iyo qoob faras. meel kastoo qoob faras iyo caggeelba ay gaarto diinkayga inuu gaari doono. taa ogow, meel allaala meesha inta oor loo qaato socdo meeshuu gaaro iyo meel allaala meeshii faras uu gaaro ayuu gaari doonaa. min muxammadin, muxamed xaggiisay ka timid oo rasuulillaahi ah. ilaa hawdah bin cali bay u socotaa. salaamun nabadgelyo calaa man ittabaca alhudaa, qofka hanuunka ay ahaatay. waclam ogow anna diinii, diinkayga buu nebigu warqadda ku qoray, waa diinta islaamkee sayadharu inay gaari doonto kana muuqan doonto ilaa muntaha alkhufu waalxaafiru, inuu gaari doono meesha uu gaaro alkhufu caggeel iyo waalxaafiru qob farsba. fa aslim islaam, hawdow taslam waad nabadgelaysaaye, aad nabadgeshida iska islaam. wajacal laka waa kuu yeelayaa maa taxta yadayka, wixii gacantaada hoostiisa ku jira. intaad haysato intaad maxug tahay sidaad ugu ahaanaysaa, sidaadaad u ahaanaysaayo islaam. wa bacata waa la soo diray rasuulka alkitaaba, kitaabkii maca saliid bin camr alcaamiriy, nin la yidhaahdo saxaabi ah ayuu u soo diiday. wuxuu yidhi orod warqadan geey oo waxaad u geysaa hawdah ibnu cali oo yamaamo saaxiibkeeda markaa ah. fakarmameeyey saliid markuu u tegay ninkii hawda ahaa. wa ajaazahu wuxuu siiyey fa akramahu wuu karaameeyey. wa ajaazahu waa ixtiraamayo wuu siiyey wixii uu siin lahaa. wa kasahu wuxuuna wuu siiyey oo min nasiiji hajar lagu sameeyey, dharka hajar lagu sameeye ah. jawaab warqad buu soo qoray marka. axsana maa tadcuu ilayhi waajmala, waa wax aad iyo aad u wanaagsan, waa wax aad iyo aad u qurux badan buu yidhi. allah maxaa ka fiican waxaa dadka ugu wacayso, maxaase ka qurux badan. wa ana shaacirun, abwaan baan ahay buu yidhi. halqowmi qoomkayga ayaan gabyaa u ahay. wa khatiibuhum, kooda ugu aftahansan tolkaygana waan ahay. waalcarabu carabna tahaabanii way iga heybaystaan, aad bay ii ixtiraamaan. fajcal madaxtinimada iyo degnimadan aad sheeganayso wax iga sii buu yidhi. attabicuka, waan ku raacayaaye. madaxtinimadan iyo wuxuu u maleeyaa madaxtinimo ummadana wax lagu gorgortamaayo. asagaa loo dadaalayaa oo la rabaa inuu islaamo oo dhuxul naar uu ka badbaado, uu ilaahay aamino, uu ummadiisii cadaabka ka badbaadiyo. hadalkii saas ahaa jawaabtuu soo diray waxay noqotay, maxamedow
waxaa dadka ugu wacaysa wax fiican waaye, waa wax qurux badan. anigana shaacirkii abaan ahay gabla qolkayga wahatiibuhum midkuba ugu ertahay walcarabinahum oo aad bay aniga iiga heebaystaani fajcal lii bacda alamri amarka qayb ka mida iyo garab istaagno, meeshaada fadhi ama meeshii aan fadhiisto, ha lagu ixtiraamo ama ha la ii ixtiraamo, waxaa iga dhigtaa buu yidhi amarka qayb iiga dhiib, attabicuka aan ku raace. rasuulka waxay soo gaari doontaa hadalkiisii jawaabtiisa, bal wuxuu rasuulku ka dhahana waan arki doonaa haddii rabbi yidhaahdo. casharada nagu soo socdaan ku arkaynaa. meesha haynoo joogto. wabillahi tawfiiq, wallahu subxaanahu wa tacala.